سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. دابود يا شقيمة بدن وحد كسر دباتان تبنتان وين ودحيسة شبسية سدوك لهالجن كلن كانوا وكلن وين runtii waa kulan lagu go'aamin doono natiijada labada kooxba waxay doonayaan inay guuleystaan maadaama kooxda shibis ay leedahay 4 dhibcood kaliya ay u baahan tahay xitaa barbaro maadaama ay kooxda halgan ay u baahan tahay inay guuleysato maadaama ay leedahay 2 dhibcood waxay doonaysaa galabtu inay guuleysato si ay markaasi u tiigsato ama ay u gaarto 5 dhibcood ugana soo baxda garuubaha si ay ugu mid noqoto kooxaha u soo gudba sideed dhamaadka tartankan weyn ee u dhaxeeya kooxaha degmada Balcad ee heerka koowaad baaska hore ciyaarta waxaan sameyn doonaa casaanka kooxda shibis karsoor najiib ayaana kulankan dhexdhexaadinayo halgan iyo sidoo kale shibis ayuu u dhaxeeyaa waa kulan weyn runtii waa kulan lagu go'aamin karo natiijada guud kooxdii u soo gudbi lahayd heerka sideed dhamaadka waa la baas casaanka ayaana baaska ugu horeeyay ciyaarta sameeyay ee shibis فريقي كاليسا يتورنا يان وفريقي كي وغوري سميرا يكون الشبس خطر ها ميا حيات كوبات خطرة كوبات وحيات سخابة سنلو توري شبس وحي كودباتين ايدا ليسو جول كاسو مدول بددال وموجينا يوسي ومركاسي سيدح دبعوت هالكان وكذا قادن لها هدي اي شبس وباهان تاي بربرا اما قول ogow halgan waxay u baahan tahay guul oo kaliya maadaama ay 2 dhibcood leedahay hadii ay 3 dhibcood maanta ay ku xoogto shibis taas waxay ka dhigan tahay in 5 dhibcood sidaas ay ku tagi doonto hadii ay shibis guul ama barbara hesho taas waxay ka dhigan tahay inay markaas u soo gudubtay sideed dhamaadka tartankan shibis gacantuurkaas way soo sameysay وكان مركان أمين ووصو صاري أمين وحوكم دياي حدقه كسوها يامي كوحدة الشبس أمين أسيقا يا تورا يفاول كان حونو كميدياي حدقه ساقسو تغي كوحدة الشبس سنة كان وحاسدو كلا كميدا حدقه الشبس كسو تغي حدقه قولايا أغجر كوحدة هالغن هي آنس كاس أو مانتا كوحدي سوجهايا وكان مركان خطر ولانا يسمين ايان هلقن يا وير كجرتو دافع الدم بشبس ايانا سيقو روح بدن وقصو صاري وكان هلقن مركل دولانا يسمين ايان قرب كيتالا مركان سيقو روح بدن اي ورغاتي امين يا سو سمين اي جيس كلات كاس وسو سمي مركان وعيار ايان امين مركل وصو لابتي سيقو روح بدن اي ولادي وخطر وخطر لبالي يا لسمي كابتن كموتوري دونا كوبات خطر تيدا مدن شبو كوبات داس بنانكا يكودا ماتي وكان شبي سالس جول شبيس جول يا تيمت ومالين وحن رنتي هالجن جول يا لوجو شوي هالجن حدي قلم بركة كوي تبنات هيك واحدة شبي سيانا قبت خروح بدن كاخي جي كواحدة هالجن آنس قبت هادو قروح بدن يا لقدو الخاضي قبضا سوان كاقبرنا ميسي عيارتوي كلو عالم كعيارته وانا قبضا اللو يقانو فيكتا تاقيراتو فرا بدن يا شبي سو صعبتو ما يقواس وادو قري يقصن goolkii quruxda badnaa uu dhaliyay xidiga lambarka 12aad ee kooxda shibis gool iyo waxa ku hogaaminaysa casaanka kooxda shibis casaanka galabto way u shidan tahay casaanka waa galabtu waa galabtii shibis waa galabay halganay u baahan tahay guul عجيب كوبات الغوضة يا لغتوري وجهك فولك فولا سي خروح بدن ايو كنترول يدولك
wuxuuna ku qabtay labadiisa gacmood. waa xidig runtii bad gool loo filin karo markaad eegto qaabka loo tuuray, halka laga helay iyo sida markaasi loogu darbeeyay. laakiin si degan ayuu u qabsaday goolahayaas maadaama uu yahay goolahayaalka uga saameynta badan ee tartankan weyn ee laga ciyaarayo degmada Balcad. madasha waa garoonka weyn ee degmada Balcad. muuqaalkan quruxda badan waxaad ka daawanaysaan Rajo Sports Balcad. magacaygu waa Jalaani Cali Mucuu Kamaara, waxaana si toos ah u daawanaysaan kulankan weyn ee u dhexeeya Shibis iyo sidoo kale Halgan. haddii Halgan u baahan tahay guul, Shibis waxay u baahan tahay barbaro ama guul. gool ayayna ku hogaaminaysaa waqtigan. xidigii goolka dhaliyay asiga ayaa ciyaaraya, waa laga soo saaray markaan. way ciyaarayaan dhexdeed taalaa markaan. Shibis weerar ayaa markaasi lagu hayaa, faawul ayaana loo dhigay. kooxda Halgan jaalihii ugu horeeyay ciyaaryahanka lambarka 5 ee Shibis asiga ayaa qaatay. Halgan ayaana tuuraysa, dhowr ciyaaryahan ayaa u taagan kubaddaas. haddii kubaddan si qaabeysan loo tuuro, qaab degan loo tuuro, qaab casriyeysan loo tuuro, way noqon kartaa. isku daygu waa mid muhiima si markaasi kooxdiisu ugu barbareeyo oo u soo celiyo natiijada ciyaartan weyn. garsoore Najiib ayaa laga dhowr sugayaa. seeriga ayuunu ka dhawaajiyay ciyaaryahankaasi durba uu sameeyey, laakiin hawada ayuu u diray. goolka waxay u jirtay masaafo dheer. waa kan weerar ayay ku jiraan markaan. weer Halgan waxay sameynaysaa dadaalo fara badan ay ku muujinayso si ay markaasi ay ku soo barbareen lahayd goolka. Shibis waxay muujinaysaa difaacasho badan si ay markaasi goolkan ay markaasi ugu guuleysato. ajawo uu sameynayaa si qurux badan ayuu u gooyay. sameynta waxay ahayd mid qurux badan, goosmadu waxay ahayd mid qurux badan. waa kan asiga ayaa tuuray geeskalaadkaas. waa uu soo tuuray markaan. khatar way iska soo saareen Shibis. ayaga ayaa ciyaaraya markaan. si qurux badan ayaa loogu dhiibay. ciyaaryahan Saatumo garabkay taalaa markaan. wuu gooyay mar kale si qurux badan geeska ayuu dhigay. Hanis waxaa soo ilaatay qaybtii hore ee ciyaartii weyn ee u dhexeysa Halgan iyo sidoo kale Shibis. ciyaartu waa gool iyo gool, waxaana bedel ku soo galaya lambarka 18 waxaana baxaya lambarka 11. goolkii quruxda badnaa ee u kool martay Shibis waa laga barbareeyay runtii. ciyaaryahan Amiin ayaana ka barbareeyay si qurux badan hore ayaa kugu sheegay. goolahayahan wuxuu ka mid yahay goolahayaalka ugu saameynta badan ee degmada Balcad. kubad khatar mudan, kubad madfac ayaa lagu tuuray, laakiin wuu seef gareeyay. waxaa ii muuqanaya macalinka kooxda Shibis, sidoo kale waxaa ii muuqanaya macallimiinta kooxda Halgan, kuwaas oo wada tashi sameynaya maadaama ay guul ay u baahan yihiin. ciyaartuna ay tahay mid barbara ah. kubaddan geeska ayay taalaa, waana free kick halisa. waxaana u taagan kabtanka kooxda Shibis. laba ciyaaryahan ayaa bareer ka xiranaysa. haddii uu si qurux badan u tuuro waxay noqon kartaa gool. waa la soo saaray kubaddaas, weli waa lagu dagaalamayaa. taageero aad u fara badan kuwaasoo u sacbatumaya kooxda Shibis. kabtanka kooxda Shibis ayaa dhaawac sheeganaya. jaa qurux badan ayay taalaa. waa meel laga xaqiiji kara runtii kubaddan. haddii si wanaagsan loo tuuro waxaa loo sarifi karaa gool. Amiin ayaana u taagan kubaddan. waana ciyaaryahan runtii darbadiisa inta badan ee aad u wanaagsan tahay. 3 ciyaaryahan oo kooxda Shibis ay bareer ka xiranayso. waa uu soo tuuray ciyaaryahankaas, balse hawada ay kubaddaasi ku dhamaatay. kabtanka naadiga Halgan asiga ayaa u taagan. haddii uu goolkan u xaqiijiyo, Halgan runtii uu ka fujiyay, balse haddii uu kubaddaani cuno taas waxay ka dhigan tahay Halgan weli shaqo badan inay u dhiman tahay. weeray sameynaysaa
markaan halgan way ciyaarayaan daqiiqado kaliya ayaa uga harsan inay macsalaameeyaan tartanka weyn ee degmada Balcad